kadib saameyn uu ku yeeshay warbaahinta Mareykanka iyo adduunka Donald Trump kuna magac dheer ninka timaha huruuda ah waa malqabeen cadaystay cadaawadda u hayo muslimiinta iyo jinsiyadaha kale ee ku dhaqan waddanka Mareykanka ee ay ka mid yihiin Chinese-ka, Mexican-ka iyo waliba dumarka. wuxuu noqday murashaxa kaliya ee haatan haysta kalsoonida xisbiga jamhuuriga ee lagu tartamayo doorashada madaxtinimada waddanka Mareykanka. waxaa kadis noqotay markii uu CRUZ oo ahaa murashaxa kaliya ee loonada kula jiray Donald Trump shaaciyay inuu ka haleeli doono tartankii ugu jiray doorashada guriga cad ee Mareykanka, halka uu hore ka sheegay inuu u halgami doono ilaa iyo dhamaadka. balse go'aankiisa ayaa yimi markii Donald Trump uu kaga guuleystay gobolka Indiana oo ah gobolka hadda murashaxii ku guuleystaa uu gudbi karo guriga cad. hore ayaanu yiri dagaalka waynu wadaynaa ilaa aynu guul ka xaqiijin doono, laakiin waxaan ka xumahay caawa inaan idhaahdo wadadaasi way oodantay. waynu qabanay waxaynu awoodi karaynay, iminka iyo haatan si muruga ku dhacan tahay waa aynu joojinay ololaheennii. laakiin jamhuuriga oo haatan awoodaha Donald Trump ayna jirin cid cabsi gelinaysa ayaa waxa uu yaalla hawlo ay ka mid yihiin sidii taageerayaal kale oo ku soo jiidan lahaa xisbiga jamhuurigu. iyaduna waxaa kadis noqotay markii Bernie Sanders uu ka guuleystay Hillary Clinton ololaha doorashada gobolka Indiana. Jakarta.